بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أنا حليمة حسين يوسف حقيقة أرمها بالشدة يقويسك حسب عدالة يا دريال كوعود هل كم حنك هذا ليا دبعتها كهاي ستشعب كرير سومالان عافيماتك waxaan soo qaadanaya dhakhtarkii kala baydh ummadu waxay madaxweyne u doorataa wasaaradda u doorataa waa wax qabad looma doorto qofka inuu gurigiisa iyo reerkiisa ku noqdee baahiya bulshada dhexdooda jira inuu daboolaa loo baahan yahay dhakhtarkii kala baydh waxa lagaga umulinaya dumarka telefoon xataa toosh ma hayn telefoonka leerkiisa lagaga umulinaya talo marka maxay problemkaas ku dhaceen dadku miyaanu loo baahnayn dad aanu hayn human being miyaanu hayn dadku ma waxa weeye wax iska yimaado sida xayawaanka loola dhaqmaya waxa weeye dadkaas wasaaradda waxbarashada anigu yeedaa waxaan baarinay wasiirkeeda wasaaradda caafimaadka soori wasiirkeeda iyo agaasimaheeda ayaan waxaan baarinaya waxaynu ognahay xogagaala dadkii ugu khibradda badnaa in 4 qof oo dhakhtarada ka shaqeyn jiro caafimaad ay dhinteen aan xataa loo taxsiyadeyn waxa weeye dadku deeyla xayawaan ma ahayn loo ogaado lacagta waxaynu ku bixinaa bilaa macni qof baa lagu soo casuumaa meel baa lagu tagaa dad baa lagu laalushaa baahiya jira in lagu daboolo weeye dawladda waxaan ugu yeedhaynaa inay dhakhtarka wixii ka dhiman ay adreys garayso inaan baan arkay hadlayo yiri soilartii baa xumaatay oo soilartu ma dadkay ka qiimo badnayd soilarta lacag baa goysa one day-na waa lagu rakibi lahaa one day lagu ma rakibina kabal afan waris baa lagu rakibi lahaa dad ministaas waxa weeyaan inaanay dawladda Soomaaliland dadku qiimo bala lahayn dadku qiimo agtiina kama leh imanka marka la baxayo ee dadku ay u baxayaan shaqo jaariyadaha xigaalkooda laga soo ururiyaa guryaha talaalka marka loo baxayo dadkii khibradda u lahaa dadka ma raacaan ilaahay ina ka baqdaan weeyaan inta ifka la joogana in aakhira la jooga ka badan wasaaradana waxaynu samaysanay ummadda u simantii reer ma tihidin ummadda Soomaaliland baa u simantihiin shacabka idinka ka masuula alle kaga cabsada naftiina iyo guryihiina u tura ubadkiina iyo awlaadkiina u tura aakhiradiina u tura waxa loo baahan yahay wasiirka cusub ee wasaaradda caafimaadka loo magacaabay waxaan ugu baaqayaa isbedel inuu keeno hoos inuu wasaaraddiisa u eego dulmiga hareeyay iyo musuqmaasuqa inuu eego problemyada jira inuu eego waxa soo qaaday dhakhtarkaas quraamaha intaas oo injiyoon baa furan oo bilaa dhakhtar oo xidhan oo bilaa dawo oo xidhan hooyooyinka way umul raacayaan doraati ka horeysay inan baa saraan laga soo qaday iyadoo foolanaysa dhexday ku dhimatay burca lagu aas marka bilaa calaga ma ka daato oo wasaaradaha ka taga oo dad khibrad leh loogu yeero ama u qabta ummadda waxaan kala raacinayaa inankii wariyaha ahaa ee warkaas soo tabiyay waa la xidhan وهذا ديمقراطية شيء وحرية قول شيء حرية قول كان ما واحد نقطين أنت اللي شيء حرية قول كم نحن نقطين ضدك اللي حلو حرية قول كم واحد نقطيها هادلنا وحوي ضدك وهادلي أنا جنا ما حد كرتاني أنا ما حد كرتاني إذا سود دايرهم بوشيء بلا يدين هذودي شيء وحنا بهذودي ليا شيء ده كيس كنا ردتك داية ضدك وحبا يدين ما هري دولة كل مياه سنة بايدين هري سنة كا Soomaalidu waxay taa caano qubtay barkood baa la qabtay wixii al 3-4 sano soo samayseen bal dadka ka yar maydha ina 10% heshaan xataa dalka ka yeeshaan maydha arinta waxaan ugu baaqayaa in dhakhtarka sida ugu degdeg badan wax laga qabto dhaqaatiirada xidhan iyo injiyada xidhanna la adreys gareeyo ina Xasan Gaafadhi baan ugu baaqayaa arinta wasiir cusub baa tahay waa lagu doortay nolosha bilaadanka qofku waa inuu raad ku sameeyo waxa weeye waa inuu raad ku sameeyo taariikhda adduunka ka hadha wax kale kama haraan wasaaradda hoos u eeg baan ku leeyahay saasan xasan ugu baaqay reer Soomaaliland dad bay inaga yaacay xamar tagayo leh xildhibaano Soomaaliland matalayaanu nahay xildhibaanadeena inaga farteena ku soo saarna kuna ridna inaga gacanta ku hayna nama matalaan Soomaaliland ma matalaan madaxweynaha waxaan ugu baaqayaa inuu sharci adag iyo golayaasha sharci degshantu ay ka soo saaraan inaan xataa maydkooda lagu aasi karin dalkeena oona iman karin sharci laga soo saaro tuugta magacii dadka xambaarsan sharci dawladda ka soo saara baanu leenahay dalka iyo imanoo lagu xabaashooda laga mamnuuco intaasan ku darsanaya arinta